dowladda Suudaan ee ciidamadu maamulaan ayaa diiday casuumaadda la xiriirta inay ka qayb galaan shir madaxeedka dalalka urur goboleedka IGAD oo ka dhacaya dalka Uganda. Shirkan ayaa waxaa dhawaan cilaamiyay madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo ah gudoomiyaha urur goboleedka IGAD isagoo oo markaasi ku baaqay in shir degdeg ah oo looga hadlayo damaca guracan ee dowladda Itoobiya ay jawaab ka bixiyaan urur goboleedka IGAD. shirkan oo ka dhici doona 18 bishan January 2024 dalka Uganda ayaa qorshuhu waxa uu yahay in laga jawaabo baaqi ay Soomaaliya soo saartay ahaa in wadamada urur goboleedka IGAD ay kulan ka yeeshaan damaca guracan ee dowladda Itoobiya. hase yeeshee dowladda Suudaan ee ciidamada militariga ay hogaamiyaan ayaa aan ka qayb gali doonin halka garabka ay ishayaan ee RSF ay sheegeen inay ka qayb gali doonaan shirkaasi. IGAD ayaa marar badan isku dayday in ay dhexdhexaadiso generaalada isku haya dalka Suudaan, hase yeeshee waxaa taasi ka cagajiday dowladda uu hogaaminayo generaalka howlgabka ah ee Burhaan. shirkan oo loo madlan yahay 18 bishan ayaa imaanaya xilli dowladda Soomaaliya ay diblomaasiyad ahaan ay ka adkaatay dowladda Itoobiya iyadoo oo dalalka ugu muhiimsan caalamka ay uga digeen Itoobiya damaceeda guracan ee ay ku doonayso badda Soomaaliya, taasi oo dad badan oo Soomaaliya ka careysiisay. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sidoo kale hore u soo saartay qaraar ka hor yimid heshiiskii afgaradka ahaa ee ay gaareen ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Abiy Ahmed iyo Muuse Biixi Cabdi oo isaguna xilligan ku jira xaalad qariska tuura. si kastaba ha ahaatee dowladda Djibouti ayaa u muuqatay inay door firfircoon ay ka qaadanayso sidii loo dejin lahaa xiisadda ka dhaxaloonsantay dowladaha Itoobiya iyo Soomaaliya iyadoo labada dalba ay xubno muhiim ah ay ku leeyihiin urur goboleedka IGAD.